kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo haddaba barnaamijka saakay waxaynu kusoo gudbin doonaa wararkii soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba xalay waxaa la leeyahay waana waashay iiraan waana wareerisay waana waashay ay taagan yihiin wariyaasha habeen kasta waxaa la taagan yahay midii ay dhigtay hubka ay la soo baxday kuwii horeba ka daran hubka ay la soo baxday kuwii horeba ka daran xalay weliba dhoola tusaa socday 3 saacadood gantaalo la soo ridayay oo xiriir ah 3 saacaad 3 saacadood ayay socdeen gantaalaha aaway diyaaradihii Mareykanka aaway kuwii Israa'iil waa burburinay meelihii gantaalaha ay ka soo dhacayeen soo ma lahayn oo hadda 3 saacadood gantaalo istaba joog soo baxaya maxay wax uga qaban waayeen calaamatu su'aal ayay saareen halkaas qobarada sheeko waalana marka meesha ka jirta haddaba xalay wixii dhacay Al Jazeera saakay waxay ka qortaan idin la wadaagayaan telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay waxay socdeen muddo 3 saacadood ah ciidanka ilaalada kacaanka waxay sheegeen inay rideen mawjad cusub oo gantaalo ah waana kuwii ugu cuslaa uguna xanuun badnaa intii dagaalka uu socday ayaa xalay lagu qaaday Yahuudi haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan aroorta saakay oo Arbaca war rasmi ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen inay aroortii saakay gantaalo culus ku garaaceen Iiraan waxay sheegtay gantaalahaasi la riday inay qayb ka ahaayeen howlgalka la yiraahdo al-wa'du as-saadiq 4 waxay socdeen 3 saacadood ugu yaraan waaba ka badnaa karaan inta saacadood ay socdeen waxaana ay qayb ka ahaayeen silsilada weerarada numberka leh kaasoo saakay kii lagu qaaday uu ahaa kii 37 ama 37 weerarkii ahaa ayaa saakay lagu hurgufay waxaa la sheegay meelaha dukum daakum laga dhigay saakay gantaalahaasu ay ku habsadeen Ciraaq deegaanka la yiraahdo Arbil saldhig Mareykanka uu ku lahaa halkaas ciidamada Mareykanka maraakiibtooda saldhigii ay ku lahaayeen Bahrain ee la yiraahdo Ustul Khamis bartamaha magaalada Tel Aviv oo iyaduna qiiq fara badan uu ka baxay oo gantaalaha ay ku habsadeen waa la yaabay hebel ma annaguna waalayaa maxay yihiin waxaan ma maqli jirta hadda waxaa taaganahay war Iiraan ba annagay dhawaalaysaa war Iiraan way ka daba tegaysaa hadal kastoo laga sheego xalaya waxay ahayd aqalka cad inta la soo istaagay waxaa la yiri 90% gantaalihii Iiraan cagta marin khalaas waa u dhamaatay Iiraan ma noo dhamaatay liirha kuwii cuslaa halkaas ka soo bax kuwii kan ka cuslaakeen 3 saacadood caawa taariikha dhacday taariikh la yaab laha dhacday 3 saacadood weeraro istaba jooga wada 3 saacadood ma inta ku taal oo gantaalku iska socdo war wuxuu tira badana xagee ka keenayna leey nimankanu maantee waxaan ugu kaydsan yihiin sidee wax u jiraan haddaba aan idin tuso video telefishinka Al Jazeera uu ka soo tabiyay weerarkaas gantaalihii sida ay u dhacayeen xalay waaye markii sidaas ay wax u dhaceen oo khaliijkii oo dhan isla qiiqay oo Israa'iil walahood ka dhacay ayaa markiiba diyaaradahoodii waxay yiraahdeen waa aarsanaynaa waa annaguna waxaan soo duqaynaynaa Iiraan iyo Lubnaan warkooda idin haya
الجزيرة يدنا وحلّذا إذا كإسرائيل وحي شيئين إن يجونا قادين والرء أي كوكلا قادين إيران إيا بيروت إذا ماذا إسرائيل وحي شيئين يجونا والرء علص إن يكجيستين مقالة بيروت يوركلا وأي كوكادين إيران وليبا بيروت وحي كويررين دنكا كونفورتا بيروت halkaasoo ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goobo muhiima oo ay lahaayeen xisbullah sida ciidanka ay sheegeen sheekaasu ayaduna waa kaas waa u jeedaan maalinba maalinta ka dambaysa baashu way soo kululaanaysaa dagaalkii cirkaasuu galay waa la yaabay waaye warka kale oo xiisaha leh waxa waaye xalay waxaan arkay Trump oo soo qoray oo leh maraakiib doonaysay in ay miino ku xabaalaan miinooyin geliyaan marinbiyoodka Hormuz ayaa ciidankeenu baabi'iyeen waxay gelin karaan male isla asagii waaye asagaasa warkaas uu sheegay waa faanaya odaga caadi ma isla odagii saakay waxa la leeyahay war kale la imaaday ciidanka waxay ku yiraahdeen war horeeba ku aaseen waaba lagu aasay meeshaan waa aasayna markay leeyihiin mar horeeba ku aasteen ali odagii haddana alaab kale ka soo tuuray araditusu marka alaabtii dambe uu soo tuuray ayaa hadda saakay soo dhacday waxaa la yiri Trump waxa uu wacad ku maray Iran haddii aanay ka bixinin miinooyinka ay gelisay mudayiq Hormuz inuu markaa tallaabo culus qaadi doono haddaba warbixinta oo wakaalada wararka Turkiga Anadolu waxay leedahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waqti dambe waxa uu soo qoray sheeko uu leeyahay cawaaqib military oo aan hore loo arag ayay Iran la kulmi doontaa haddii aanay ka saarin miinooyinka ay gelisay meesha la yiraahdo Hormuz Trump wuxuu ku soo qoray isla warkan True Socialkiisa isagoo leh Iran waan u digayaa waa inay degdeg uga saartaa miinooyinka halkaas ay gelisay isagoo waliba waxa la yiri horay u soo qoray in laga hortagay maraakiibtii miinooyinka gelin lahayd halkaas odayga marka waa tartaray meesha gaariga markuu tartaro oo waa kacinaysa jag uu damaya waa kacinaysa uu damaya odayga marka waa tartaray dagaalkii uu ku wareeray wax uu sheego aqoolay wax walba uu sheego isla asagiya burinay ninkii dhahay waa maraakiibtii waa garaacnay ogow fiidkii ahay saakay muxuu leeyahay كبحية باش هديك كلا بدار يدي كله محمد قاضي تاجي هذيك وحبا كوارد وعرض سطور وحلا يصنعها باشا بجرت وايه وربحنا ذو ويسك صوت دورنا عيان وحشوا كلا الذين هيا إيران أرين ليها بلاك صوت سيدا آية الله عصب ويمي إيران مركا لما جروب وايه جروب وحلنا إصلاحيين ونما كان حوجا سياسة iyo xisbeddelka iyo xoogaa modern iska dhigay inama kan wadaadada mididka wadaadada ayaga waxa dhan haysta laakiin dawaka waxay u qaabilsan wada hadallada iyo waxa kan raggan marka wada hadallada u qaabilsan waxa akhyaartooda ahaa ninka la yiraahdo Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda waa ninkii Mareykanka iyo waxa kan wada hadallada la gali jiray hadda waxa leeyahay kulligood waxay isku bedeleen rag dagaalamay حتى نكي ولا هذا الكقابل سنة دجال وسؤال ولا هذا الرن مجرو آية الله يقول الصبح لي يعني ما ك إلى أن جودة كدقنا أن أرنو ضد كنا يا أبهي وحي يقولون أن أرنو نوكا كارمين سياسة دي دبلوماسية دي حتى خارج كدي بدأ أي دجال سكوب بدش نبضنا يسوسعون إيران أي وحى إلى وما كذا أنك دجال كمركا ورمانا يحدد النتر إلى عدو وكتشبنا ووضعنا وذا هذا الوحلة مجران ورك وحق فهم نكي وذا هذا الكقابل سنة دجال كي كجران هذا بقى أنا تصو تلفزيون الجزيرة ساكي ورك عصبوها يوحى كمذا عباس عراقجي
wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu yiri sawaariiqdeena waxay u geysteen Israa'iil burbur lixaad leh wuxuuna yiri uu ku hanjabay ma zilna bil bidaaya wali bilow waayna والله سيا alaabtan wuxuu yiri xalay aragteen iyo wixii ka horeeyay ma zilna bil bidaaya marka maxaa waxa waa bilowday af bilow tan ma la isgaarib ninka sidaa dhabarka macnaha warka waxa nuxur u sameynaya fiiriye nimankii حارس الثورة نوك اللي هذا عينك إلى هذا مارتي كعانك حارس الثورة اللي هذا نمك هاسيو أفيانا ذا عيدا مضي ترياشي مركي هذا الدواب الدقالي كتيران نكا ونكي وذا هذا لذا قابل سراوي عباس عراق تيجي بهذا وحولي نمك جبتان كجل النيوانا بالله هذا كسي وذا النو تاجي شيء كذا سوبركا أيضنا هالكاسي بريسا ووركي ودبي سوكردي وايه warbixinada kale soo kordhay waxa ka mid ah saaka Sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraad mid walba warar soo saaray uu leeyahay drones halka iga soo gashay halka gantaala soo warar waa ka hortagay halkan hurda ma jirto Kuwait iska dhaaf meel la hurda male Israa'iil iska dhaaf meeshaas dhulkaas oo dhan xalay waxa laga dhigay weerar lagu qaaday weeraradaas marka ayaa geysana intooda badan إيران يا أولادها نمك عراق جوجا كويت يا أولو جوكتي كسارة ماشاس مركا إذا راني ما كتاعن إمارات كي مركا وايسين واي قربا ألعاب عروسها قارت إمارات نو السودانيين وحال أركي السودانيين وحي صوقرين شيكا عجيبة صوقرين مقالة خرطوم وحيلادين رمضانكو سفي عمبو نوغو صوقري وحر والنبتقليو تهجدك تراويح هذا سن نبتقليان كنتو كرينا إماراتكي نلما قنا شرقولك أو قلوينك معارضك نو صوتي ما أنت أركده وحا هايست هرد مجرتين إني يا وذا سوتاك بكل قد نواكي ملاحظة قورمو كوغوها بسن دورا دريشة قورمي درون إيران ليدا كاقسو قلي دونتا marka walaahoodkii iyo cabsidii iyo qababacdi ilaahay meel u jeediyay fiir Suudaantii shalay uu nagta ku hayay oo nimanka uu isticmaalay oo lacagta ku bixinay dadka muslimiinta in la dhibaateeyo maanta waa kaas way raaxaysanayaan Yemantii oo qoladii gooni u goosadka waxa kan ku hubay maanta waa raaxaysanayaan maanta isagii waxa hayst fiir maanta waxa dhacay marka xalay waxa u yeereen ergeygii waxa jira وقابل سنشينها منطقة بريقة دحي ارجي واي سفير مع سفير هذا ودن يقابل سين كانوا مبعوث او ارجي وحالي هذا تيتر كويس وحالي هذا ارجي شينها بريقة دحالها ودن ماذا بريقة دحي نك شينها وارجي واهواي نكي ويارين نكي وزير كريمات دبدا امارات على فريست ورني بك شي على رقبت ورنا كان جبتي دقيقة هرددين نو ديدين أذيك كلية واحد كم مغليان روسكي والله هذا اللي وحبابك غبراي ورنا كان نقال هذا اللي كوهي كبعد محل عي ورك النكان كلية على صغرين وحلي أبي الجزيرة وعبالكي تلفزيون كسكاي نيوز على صغرين نكان وزير كريمات دبدا عباد كيسي وركيسة كلية على صغرين نكي الشينيس كا بوعو شاقعت على مجيد قربوا قرصدين وحود هذا markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay ee arika laga qoray telefishinka Sky News wuxuu leeyahay Abdullah bin Zayed oo ah wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka waxa uu wada hadallo la qaatay ergeyga Shiinaha waxayna ka wada hadleen sida ay tiri Imaaraadku gardarrada Iiraan ay ku hayso Imaaraadka hadaba Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ku xigeenka golaha wasiirada sidoo kalena ah wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa la kulmay ninka la yiraahdo Chao Chong kaasoo ah ergeyga gaarka ah ee xukuumadda Shiinaha u qaabilsan bariga dhexe hadaba labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda taagan dawladda Imaaraadku waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in
shiinuhu uu kaalin ka qaato sidii gardarrada lagu hayo imaaraadka wax looga qaban lahaa. marka meesha iyaduna warkaas ayaa taagan. xaalku marka isaguna halkaasu kasii dhaadhacaya, meeshaasay wax marayaan saakay. haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa war soo saaray sida lagu daabacay wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi. muxuu yidhi wiilka Kim Jong Un layiraahdo jeegaxiirka wuxuu leeyahay annaga waxaa taageersan uu yidhi Iiraan si fiican u taageeraynaa. waxaa sidoo kale taageersan u dhahay Mujtaba Khamenei, ninkaan nin raga waa u dhahay, ninkaas nin caadi ma waa taageersan u dhahay. markaas waxaa la soo saaraa sawir isagoo markaa booqanaya oo taabanaya madax nuclear isagoo taabanaya. marka waxaa leeyahay sawirkan iyo warkan iyo waxa saakay Mareykanka koonfurta Korea gantaarihii uu ka soo qaatay qaar ka mid ah diyaaradaha la soo saaray THAAD iyo Patriotic iyo qaar la soo qaaday. ninkan marka muxuu damacsanyahay? wuxuu damacsanyahay yaqaan ninkan nin meeshiisa jooga waa ayatullahi kale waa Mareykan xisaab badan oo isku dhubsaday Trump laakiin dad badan u dhiman isreeb waay kooxdana ka gudbay mid kale ku dhiman haddana. marka sheeko waaliya marka socota aad tusoo telefishinka Al Jazeera saaki wuxuu qoray kuuriyada waqooyi waxay sheegtay inay si dhaba u taageerayso doorashada Mujtaba Khamenei inuu noqdo hogaamiyaha Iiraan. way taageersatay wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ee yiraahdo In Pyongyang ayaa waxay sheegtay in kuuriyada waqooyi taageero buuxda ay u hayso hogaamiyaha cusub ee Iiraan Ayatollah Mujtaba Khamenei ee hogaamiyaha Iiraan. waxay sidoo kale si kulul kuuriyada waqooyi u cambaareynaysaa weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ay ku hayaan Iiraan. mawjida marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa. saacadihii la soo dhaafay Xisbullah iyaguna waxay sheegeen inay weerareen magaalooyin kala duwan oo ka tirsan Israa'iil iyo Jaliil al-Aala meesha la yiraahdo oo ah Suuriya dhulka Golan ay ka haysato Israa'iil. halkaas oo saldhigyo military lagu duqeeyay. waxay kala duqeeyeen Haifa meesha la leeyahay. marka wararkaas ayaa saakay soo kordhay ugu waaweynaa. marka adduunkan ilaahowna mooti waay. tobankii dambaan ku jirnaa bisha barakaysan ee Ramadaan. ilaahay dhibaatada iyo holaca iyo mushkilada dunida ka taagan ilaahay ha naga badbaadiyo. dadka muslimiintaana ilaahay ha ka badbaadiyo. xaalku xaal fiican maaha. Iiraan waa ka yaabani nimanka habeen walba midka ka culus soo baxsana caawa ugu darneed. caawa telefishinka Al Jazeera geli kartaan YouTube-ka meesha baaratay qaybta carabiga YouTube-kiisa 3 saacadood gantaalo soconaya jugta laga gelinayo wax hore loo arkay ba. marka sheekadaas ayaa barnaamijka ugu dambeysay. la garay oo share garay ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inagoo mar walba idin soo gudbina macluumaadka saxda ah ee xaqiiqda inagoo ka soo xiganayna hay-adaha warbaahinta caalamka kuwada ugu afka dheer. haddaad nagu cusub tahay ku soo biir subscribe ka samayso YouTube-ka, Facebook-kana follow garay. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan asxaabay.